dowladaha Ruushka iyo Iiraan ay la doonayaan inuu ku guuleysto doorashada Mareykanka miyuu aqalka Kremlin-ka isku dayayaa inuu Donald Trump mar labaad hogaamiyo Mareykanka xiriir miyay xukuumadda Beijing la leedahay Biden su'aalahaas ay isweydiinayaan bulshada sirdoonka Mareykanka qiimeyn ka timaaday sarkaal sare ayaa ka digaysa in quwadaha ajaanibta ay isku dayayaan inay qaadaan talaabooyin ay ku doonayaan inay saameyn ku yeeshaan doorashada November gaar ahaan waxa isdawmarin lagu sameeyo codbixiyaasha dalalkaasi ayaa la sheegay inay ku jiraan Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan. Saddexda dal ayaanan isku hadaf ahayn oo mid kasta dantiisa gaarka ayuu eeganayaa. Sidaad ogtahay Ruushka ayaa ku lug lahaa doorashada 2016 iyo wixii ka dambeeyayba. Sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in Ruushka uu isku dayayo inuu saameyn ku yeesho codadka isagoo u xaglinaya Donald Trump. Waxayna sirdoonka farta ku fiiqeen in Ruushka uu qorsheynayo weerar dhanka internetka sidii doorashadii hore loogu shakiyay inuu sameeyay. bishii la soo dhaafay senator ka tirsan xisbiga Republican-ka ayaa taageeray fikradda ah in Ruushka uu doonayo inuu doorashada Trump ku guuleysto. Doorashada 2020 waxaa booska Hillary Clinton ku jira Joe Biden, waxaana laga cabsi qabaa in Ruushka uu dadaal ku bixiyo sidii mar labaad uu Trump ku guuleysan lahaa. Christopher Wray oo ah madaxa FBI-da ayaa aaminsan in Ruushka uusan weligii joojin faragelinta doorashada Mareykanka xitaa markii Trump la doortay oo waxa uu ku lug lahaa doorashooyinka xubnaha Koongareeska ee sanadkan.